عبد الله ما سنتهي marka ugu horeyso wararkan isdhaxyaacay laga soo tabinay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ma ahan sida loo tabinayo mana jiraan ciidamo markaasi hareeyay madaxtooyada Galmudug wararkan marka lagu baahiyay baraha bulshada waa kuwa si qaldan markaasi loo faafiyay waxaan leeyahay dad markaasi aanan xogtaasi si dhab ah u helin ayaa wararkaasi baahiyay waa gartay bal faahfaahin naga sii madaxtooyada Galmudug Gaalkacyo maxay yihiin waxa ka dhacay marka laga soo tago wararka aad ii sheegaysa in sida qaldan loo baahiyay waxaan hadda iminkaan kula hadlayaa ku suganahay xarunta madaxtooyada ee markaasi magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug jawigu waa mid markaasi caadi ah ma jirto markaasi ciidamo markaasi ku hareeraysan ama lagu hareeriyay xarunta madaxtooyada arinta markaasi ku saabsan doorashada ee leeyahay markaasi kursiga hoob 95 ayaa waxa loo xiray qolo gaar ah loo xiray arintaasi markaasi ay ku tacalluqdo wararkan la baahinay iyaguna waxa ay war aan saliya raad toona lahayn ma jirto war si rasmi ah loo faafiyay ama ka soo baxay guddiga doorashooyinka Galmudug oo markaasi lagu shaaciyay in kursigaasi la xiray marka waxaan dhihi karnaa markaasi warar markaasi waa dad aanan markaasi aanan xog rasmi ah ka helin arrimaha doorashooyinka ayaa markaasi arrimahaasi si qaldan ugu baahinaya qaybaha kala duwan ee baraha bulshada ay isticmaasho ilaa iminkana ma jirto warkaasi marka ku salaysan markaasi in kursigaasi 95 nambarkiisu yahay markaasi in loo xiray qolo gaar ah way Cabdirasaaq kursigaasi hawshiisa waa u soo laabanayna laakiin arinta taagan waxay tahay ciidamo ayaa magaalada soo galay baa leeyahay oo meelo qabsaday muuqaalo la soo bandhigayay ciidankaas maxay ahaayeen marka laga soo tago in wararkaas si qaldan loo baahiyay وما سنتهي ciidankaasi magaalada way jiraan meelaha qaar in maxay ahayd oo markaasi ku sugan yihiin ciidamo way jiraan laakiin sida loogu baahiyay warkaasi loo baahiyay ma ahan mana ahan ciidamo markaasi weerar ku ah xarunta madaxtooyada mana jirto sabab markaasi weerar loogu noqdo oo markaasi madaxtooyada Galmudug ciidan ka tirsan maamulka Galmudug ay soo weerari karaan ciidankaasi waxa ay qayb ka yihiin ciidamada sugaya ammaanka madaxtooyada Galmudug oo markaasi uu ku sugan yahay madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye qorqor uu ku sugan yahay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Galmudug maalmahanba sabab markaasi uu jooga in markaasi la dhameystiro kuraasta ka harsan doorashooyinka oo markaasi 6 kursiba hore u sii baxday waa gartay jawiga magaaladu waa sidee marka tan iyo markii warkan uu soo baxay maxaa iska bedelay magaalada iyo guud ahaan xarunta madaxtooyada ee la sheegay in ciidan ay isku hareereeyeen jawiga magaalada Gaalkacyo aad u degan yahay mana jiraan wax qalalaasa ma jiraan wadooyin si gaar ah loo xiray hawsha madaxtooyada sida caadiga ah u socota madaxweynaha wax uu wada qaabilaad markaasi ku aadan kuraasta goordhow la filayo in markaasi doorashooyinkooda ay ka dhacaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug shaqada iyo markaasi ganacsiyada iyo markaasi magaalada Gaalkacyo wax walba oo markaasi ku saabsan isu socodka ama gaadiidka ahaata ama dadweynaha intaba ahaata si caadi bay u socotaa mana jiraan wax arqalad gaar ah oo markaasi ka muuqata magaalada Gaalkacyo waayay saraakiil ciidamada daraawiishta ah ayaa la sheegayaa in ay hogaaminayaan ciidamada magaalada soo galay qaarkood meel magaalada ka baxsan bay ka yimaadeen marka dadka warkaas maqlay sidee ku rumaysan karaan warkaaga ku aadan in ciidamo gadoodsan aysan jirin iyadoo meelaha qaar muuqaalo la soo gelinayay ku aadan ciidamadaas oo hubeysan warkaasi maxamed waxa ay ku rumaysan karaan dadkaan isleeyahay goorsi horeysay markii la qabanayo kursiga hoob 69 oo ay ku guuleystay xildhibaan qaale Cabdi Shire magaalada saas oo kale waxa markaasi ku daadsanaa iyadoo markaasi iyagu ilaalinayay hanaanka doorashooyinka iyo goobaha markaasi doorashooyinka lagu qabanay xitaa markaasi waxa jiray in goorsi horeysay dadka qaar xataa ay baahinayeen in magaalada Gaalkacyo markaasi ciidamo ay hareereeyeen qaybo kamid ah magaalada Gaalkacyo taasi oo markaasi ciidamadaas ay ahaayeen kuwa markaasi iyagu ilaalinayay nabadgelyada maxay ahayd doorashooyinka sida markaasi muuqatana haddii aan markaas ku soo
laabto kursiga la sheegay 95 oo loo xiray beel kamid ah beelaha dega magaalada Gaalkacyo loo xirayna arrintaasna waxay u muuqan kartaa oo taasina beenin kartaa kursigii dhawaan hore loogu sii doortay magaalada Gaalkacyo oo markaas afar haween ay ku tartamayeen ugu dambeynna si xor ah oo markaas daahfuran ay ku qaadatay xildhibaan Qaali Cabdi Shire oo markaas la og yahay taariikhda kursigaas uu soo hoyay doorashooyinka lagu qabanayay galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka